wasallim. Soo dhawaada walaalahay dhammaan. Waxaan rabaa inaan ku daro su'aalo la isoo weydiiyey inaan ka jawaabo maanta oo ah ilmaha sababtee loo wataa, maxaa keenay in caruurta laga wato iskuulada ama waalidkii iyadoo la ogeysiin ilmihiisi degdeg ah loo wato. waa su'aal la isoo weydiiyey oon rabo inaan ka jawaabo. ilmaha waxaa sabab u ah in laga kaxaysto iskuulada in emergency uu dhaco oo ilmihii uu cabsi muujiyo ama ay tiraahdo waalidkii idilaayo oo guriga kuma noqon karo, ama ay ilmihii sheegtaan dhibaato culus oo kusoo wajahan, taasoo dad badan ay ku dhacday oo laga cabsi qabo inay dhacdo. taasna waxay socialku mar walba prefer gareen in ilmaha ka si degdeg ah ay care ugu oo dhargareeyaan. waxayna haysan karaan 72 saacadood ayaa iyadoona maxkamad iyo cidna aysan xukmin ayaa ilmahaas waxaa waajib ah in oo loo geeyo emergency care. emergency care-ka adiga laguma soo ogeysiinayo, markaas kadib ayaa baaritaankaaga la gelayaa. iyadoo su-aashaas ay gabar igu soo weydiisay muxuu ahaa bahasha markii shalaytoo la su-aalihii la isoo weydiiyey ka mid ahayd. cidna hadda ma arkaayo commentigiina iyo waxba, laakiin hadhowtaan kasoo jawaabi doonaa haddii ilaah yiraahdo. waxaa kale oo muhiim ah inaan ogaano waxyaalo badan oo la iska baarayo ayaan shalay ka hadalnay. waalidka waxaa marka loo yimaad intaan loo imaanin waxay i weydiisay tiri gabar ilmo 14 jir ah. ilmaha hadduu hadli karo waa la wareysanaa, hadduu meeshaas cabsi muujiyana asaga iyo wixii la halmaalo oo ilmo ah oo 18 ka yar, haddii aysan diidin waa la kaxeynaa ayagoo si degdeg ah keer loo gelinayo. waana emergency xaaladahaas iyo wixii la mid ahna way dhacdaa inta badan. annagayna nagu dhacdaa, laakiin annaga keliya naguma dhacdo ee ilmaha cabsida muujiyo oo dhan ayaa loo geystaa. marka hadduu yiraahdo ilmihii hooyadaya saas igu sameynayso, ama gabadha hadda ka hor waxay ku tiri gabadheeda haddii aad isku kaadiso ama kastuumadaada qoyana iskuulka ka timaado waa ku gubaa. ilmaha yarka waxaa dhici kara inuu infection keena, inay kaadi ka fakato, inay maxay ahayd waxyaalo badan oo dhib ahaa jiro oo in laga baaro u baahan. laakiin hooyo Soomaali annaga waa ku guba iyo waa ku qaniina iyo alaabahaas, iyo haddaa nafta kaa jarin iyo waxay iska ahayd alaabta howlihiina lagu soo darbeeday oo cabsi saasana kaama gelayso markii aad tahay qof Soomaaliya ka yimid. laakiin inta waa cabsi, waana danger. ilmahaasna waa la remove gareynaa. marka ilmahaaga waxaa dhihi lahayd edab yeelo, halkaas fariiso. consequenceska aad siinaysana mid reasonable ha ahaado. halkoo dharbaaxyo oo barida loo geliya ilaa iyo hadda waddankan waa ka xalaal. ilaa hadda meelaha qaarkood inkastoo laga mamnuucay, intan inay kusoo socoto laga yaabo. waxay tahay in kolleyba waa waajib in ilmihii la dhowro lana tarbiyadeeyo. dhowritaanku ma aha inuu edab darro inta ku socdo aad diidaysa. haddii ilmahaaga aad edab darro ka celi weyso, kaysas lagu qaataa jiro, ayagana gadaalan kasoo sheegi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. waxaa kale oo aad iyo aad noogu badan marka baaritaanku socdo oo parental assessmentiga ayaan wadaa weli. parental assessmentigu socdo ayaa waxaad arkaysaa hooyada Soomaaliyeed inay taxadarka ugu badan siinayso qofka socialka ah oo la joogo. saas ma aha arrinta saxda ah. waa in aad taxadarka ugu badan ilmahaaga iyo naftaada iyo gurigaaga siisaa. cidda kula joogtana markasta waa boos garayn kartaa. waxaad leedahay ilmahaaga sorry intaad tiraahdaa ilmahaaga u istaagay, ilmahaaga soo qabsanee
waxay aad samaysan lahaydaa samaysana intaa soo ritira isii sug ma aha meel adiga waajib ma aha inaad naagtii hor fadhido oo taxadar siiso ilmahaagii oo isdilaayo ama qaylinaayo ama meel ka dhici rabo waa inaad taxadarka ugu badan nafsadaada iyo ilmahaaga iyo hawsha aad haysato aad siisaa ayadana aad tustaa inaad qof aad kaarin ugu ah oo ilmaheeda u hayo fudud hadday wax halaynayaan waa inaad ka celisaa cunuga hadduu miis fuulo ama uu kursi uu ka dhici rabo mid yar oo ood ku sii dayso waxaa tahay qof irresponsible ah caringkana waxaana oo careless ah taasna way dhacdaa in ilmaha lagu qaato waxaa kale oo lagu qaataa inaad personality disorder ama attitude xun professionalistka aad kula dhaqanto haddii aad ku qayliso haddii aad ka cabsato haddii aad tusiso hab aan munaasab ku ahayn nolosha annaga hadalladeena waxaa haddaan xanaaqsannaha qaylay u badan tahay qayladana waxba ma samayso iyagana waxay u yaqaanaan qayladaas nooc waalida ka mid ah oo marka way kaa qorayaan qofkan asaa maskaxiyan u caafimaad qabinay kaa qorayaan marka ilmahaagana ha ku qaylin qofka kuu yimaadayna fadlan ha ku qaylinin taas oo xuquuqdaada waalidnimo wax u dhimi karta ama kugu caddayn karta inaad tahay qof xanuunsanaya ama u baahan attention asaga naftirkiisa oon ilmahayn karin waxay fiirinayaan habka aqoontaadu ay tahay iyo parental relationship towards your child xiriirka adiga iyo ilmahaaga idinka dhexeeyana mar walba assessmentiyaa kugu socoto iyadoo oo non verbal communicationkaaga mar walbaba aada loo fiirinayo annaga mar walbaba waxaan fiirinaa kan hadalka ah laakiin kan hadalka ah midaan ahaynaa jiro oo qofka bini aadamka ah laga assess gareeyo korkiisa iyo ficiladiisa iyo waxyaalaha la midka ah waxaa la fiirinayaa parenting inuu confidence yahay qof yacni isku kalsoon inaad tahay iyo in kalena waa aad ay muhiim u tahay sababtoo ah haddaa ciddaan ka cabsanayso ilmaba ma hayn kartid qof cabsi ku jirta haddaad tahay marka inaad high self esteem haysato ood qof confident iyo tahay hooyada soomaaliyeed in badan oo power ay noloshaada siinaysaa ilmahaagana mas-uuliyadda kaaga aadan inaad gudan kartay tusaysaa qofkaas oo qof isku filan gurigeeda nadiif yahay ilmaheeda korkeeda iyo nafsadooda u qurxan yihiin haddii aad tahay qofkaas kuguma degdegayo mar walbana isku day inaa qof communitygaaga ka socoto uu ku represent gareeyo luqadana haddii aad u baahnayn xataa wax badan inay mugdkaa kalaana dhici karto qof luqada kuu tarjuma mar walba inaad codsatana waan idinkula dardaarmayaa haddii ilaahay yiraahdo inaad yacni qaylo badan tahay abusive behavior inaad leedahay muxuu abusive behaviorku noqon karaa oday habarti ku qaylinayo waa abuser habar ilmihii ku qaylinaysa iyo aaba ilmihii ku qaylinayana abuse waaye qayladu waa nooc abuska ka mid ah weliba nooca ugu xun qaylada disrespectingka waxyaalahaas iyo wixii la mid ah waxay aad iyo aad u dhibaataysaa xiriirka waalidka iyo ilmaha ka dhexeey ama ilmihii ayaa wuxuu noqonaya qof psychologically affected ah oo la abuse gareeyay dhibaatadana u nugul marka ilaahan ka magangalnay taasna yaysan nagu badanin waxaan ka digaynaa mar walba in hooyada markay umusha tahay uu ninka caro iyo naag caroonaysaa arki jirna hadda ragga soomaaliyeedaba number 1 ah hooyadiisaa taagan walaashiisaa taagan walaasha iyo hooyada iyo aabbaha iyo kulli waa kasoo tagtay adaa aabba amaanta hooyada iyo walaasha faamilkaaga shaqo kuma leh iyo aabbaha toona wixii wanaag ah oo yacni caawinaad ah ayay kugu caawin karaan laakiin hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri idinkaa dhar isku ah dharkuna isma kashifo dharku dulli iyo dulmi iskama raadiyo laakiin wuu cover gareeyaa qofka bini aadamka ah dharkiisu marka maadaama lagu yiri hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waxaa waajib kugu ah inaad mar walbaba laysu dhimriyo si dhibaatadan kale oo khatarta keeni karto ay u yaraato waxaa kaloo lagaa fiirinayaa in aad fahmi karto concernska ay local authority-ga kaa qabto
waxa lagaa baarayo inaad fahamsan oo ilmahaaga laga baarayo inaad fahamsan tahay, ama level of your responsibility ayaa lagaa fiirinaa. haddii ay wax kabitaan u baahan tahay inay ku kabaanaa dhici karto, haddii aysan kabitaan u baahnayna inaad sidaada ku wadato, haddii kaleeto oo zero iyo meelan kasoo kabmi karin taagantaana ilmahaaga keerka ayaa loo move garaynayaa. markaas iyadoo waxaasoo dhan in laga assess gareeyo ama la fiiriyo doorka aad ka istaagi karto koritaanka wanaagsan ee ilmahaas. waxaa la rabaa inaad og tahay positivity-ga iyo negativity-ga. aad yacni maxaa qaldan maxaa saxsan anaga waa naqaanaa, laakiin say u yaqaaniin inaa u taqaana qaar ayaa jiro. iyagana waxaa la rabaa inay aad tiraahdo aniga iyo idinka isku dhaqan ma nihin, laakiin dhaqankiina iyo dhaqankeena waxaa la rabaa inaad keena wax ka warqabtiin ood u sharaxdid. annaga dhaqankeena waa kaas, idinkana kaasaa leedihiin. markana taasna waa very important. waxyaalaha aan ka hadalno oon kala hadalna cidahanayna ka mid tahay. haddii mas-uuliyadda ilaahay subxaana watacaala ayaa saaray aabbaha iyo hooyada, ayna waajib ku tahay inay aabbuhu uu mar walba reerka uu u noqdo umbrella, ama uu u noqdo lamayeeri camal, ama uu u noqdo muxuu ahaa cover, reerka inuu wax huwiye u ahaado. waa annaga nidaamkeeni iyo sharcigeeni. sharciga diintana way tahay, kan mas-uuliyadda ibni aadannimona way tahay. aabbaayooda mas-uulkaasoo ahay waa kusoo koriya, waa kusoo barbaariya, meesha anaa timid. adi iskama soo dhalin, dhulkana kama soo bixin. beshan ayaa lagu soo lahaaday markaa taa aabbiyo hooyo Soomaaliyeed labadiinaba. marka ilmihii masaakiinta ahaa waa ilmo yuruba intaa la yiraahdo gabdhihii meelahaas illegal guur qalad iyo waxyaalo badan oo fasahaad ka soo baxay. gabdhihii nin kasta wuu ooynaa markay gabadhiisa dhib ku dhacdo, laakiin ninka gabadha kufsaday ee meeshuu uu ku raaxaysta xabadda ku dhuftay weli meel kuma hayno, meel ugu dambeeya kaas ma hayno. waa nina meesaa garcadayna meel kalean ka maqlay. yaa naas, gabadhaada adi waxaadan u rabin iyo hooyada gabadha kale ha u rabin. wuxuu yidhi gaaladan qaarkooda xoogaa haddaa u fiirsato ooba ka anshax roona isleedahay. wuxuu yidhi haddii gabadhaada la effecti gareeyo, gabadhaada waxaad gabdhaha kale ku samaynayso haddii lagu sameeyo yidhi gabadhaada waad ooynaysaa. marka qof kasta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka iimaan ma laha ilaa iyo qofka kale uu u dareemo siduu nafsadiisa u dareemayo. marka iimaanka irsaaqadan allaha noo sugo, laakiin waxaa muhiim oo lagama maarmaan u bulshada Soomaaliyeed, especially ragga, inay fahmaan gabadhan inay gabar tahay oo reerkeeda iyo nolosheeda intaad reerkeedii ka doontaa soo kafaalo qaaday. qaar jiiro iyo ilmo yaryar intay wax kasoo dhalaan oo dad waaweyn iska dhigayana waa aragna. ninku maba ka xishooda inuu age responsibility samaysto, laakiin iyadoon dhib lahayn oo iyadana in la kala xishooda aan jecelnaa. mar kastaba age differencega uu dhibaato badan uu nagu haayo. gabadhii haddii oday 90 jira gabar 18 jira loo guuriyo, no comments. laakiin gabadha 50 jirka hadday wiil 30 jira guursato oo laba ay talbeelayay waxawar buu guursaday. no, qof walbaba u dareem inay qof walbaba uu dooqiisa yahay. maku haysano cid walba isguursanayso, laakiin gabdho yaryaro waxaan under abuse ahaan aragnay oo waayeel oday 90 jir. odagaas iidaaba ka dhamaatay, already retired waay. ma aha in gabdhaha la lugooyo. waxaan arkaynaa ziwaajul mutca, nimanka oo vocational marriage-ka samaynayo waa ziwaajul mutca. ziwaajul mutcana waa xaaraane, gabdhaha daaya.
wuxuu rabaa inuu waa nooca zinada ka mid ah ziwaajul mutca ama tegidda meeshaan aa inta tagto aad gabadhi islaameed soo guuran munaasab ahayn inta guursato hoteelka la degto aadan guri u ijaarayninoo meelna aadan geynayninoo naagtii ay maqlaysa aa leedahay gabadhan xaq iyo xuquuqay leedahay adinkana gabdhiyo raqiisna naga dhaafa gabar walbaba booska ay taagantaha ha ka soo baxdo adiga waalidaa ku dhalay inaa nin guursato ma aha wax lagugu cadaaba ciqaab iyo cadaab adduunye midnaba kuguma magaciisanaysa laakiin waxa ciqaab iyo cadaab adduunye markaa waxaan munaasabkaaga ahayn aa gasho sumcadaadana way dhece caabid waxaan la isticmaalay waxa noloshaadana ilaaha kafaalo qaada nin kuma xirna laakiin sumcadda waa wax haba yaraatay in mar walba laga fiirsado ninka 4 beri intuu kula qoslo hotel Dubai intuu kula tago uu asaga tiisa u dan 4 maalmood adna waxa waaye imtixaan adduunyo iyo dhibaato intay haysatana Allah ka qaado intay ku soo socotana rabbil caalamiin ku ha ka kaafiyo laakiin stop nimanka Soomaaliyeed waxa wadiin wax ibni aadanimada ka baxsan waay hadda wabiyada soo fataha laakiin badahan ka cabsanayna inay nagu soo fatahaan darad waxa waa min ajaaib ma laqit min zamani yoda darad waxaan ku aad ugu qoslay nin wasiiro iyo mid xildhibaana ayaa badeen iyo malaha ayaan shidaalkii laga guranay iyo wixii intay ku soo fataheen waxa uu arkay wixii oo ku jiray baddo banaanka mayd yaal malaayga iyo wixii oo soo caariyo oo la baabiiyay markaasuu soo duuba bal badeeni waa la shidaalkii waa la sumeeyey bal fiiriya annagoo iska xeerta u dacwoonaysaa wasiir yaad wadankii dhan oo mas-uulka ka eed ayaa usoo dacwoonaya wasiir xildhibaan adiga xaa qaba kartaa mas-uuliyadaada faham ninka Soomaaliyeed mas-uuliyadda dawlad ahaan ka saaran faham mas-uuliyadda dadnimo ku saaran faham kan ilaahay ku saaray faham kan awlaadaada ka saaran faham mas-uuliyadda xaaskaaga ka saaran faham waana isu soo noqonayna wama tawfiiqina illa billah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh